بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الفتاح أبو كنور وإذن وذي ريسيرجيغا ما أنتو حن قادنينا referencing أما سيدا reference لوغو سميو research paper بلا جريزن نمرو وحالو بهايا referencing كا محالو سميو إيه سوابتي لو سميو what is referencing ومهاي why do I need reference محاو باهنا how do I read reference سيدان وأخريا what do I need to reference maxaan ugu baahan marka referencing maxaa raada reference waxa raada qaabka uu qofka u sheegayo inuu sheegan asaga lahayn hawshan uu asaga qabtay inuu hool asaga lahayn oo exactly asaga wax uu qoray oo maskaxdiisa ka keenay ahayn oo qof kale ka soo qaatay ayaa referencing waxaan referencing u baahanahay sababta aan referencing u sameeyno waxay tahay wuxuu ogolaanayaa qofka akhrinaya inuu ninkan waxaan diyaariyay argumentigan iyo calculationka inuu yahay shay oo qof kale leeyahay oo asagana qabtay hool fara badan oo meelo badan wax ka soo akhriyay ayuu qofku sheegaya sideen u akhrinayo ayuu qofka markuu akhrinayo muxuu ka helayaa wuxuu qofka akhrinayo siinaysaa shaqo weyn inuu qabto qofka markuu qofka oo reference arkay meelo badan wax ka soo akhriso oo fahmay inaad adigana waxaad qofka ogolaanaysaa author ina wax ka soo qaadato shay fara badan as author ina shay badan oo meelo ka soo akhrisay oo hawlo badan aad soo qabatay ayuu ku sheegay marka inaad akhriso ama akhrisid referencega waxa ka caawinaysaa inaad hesho more source of research يعني meelo badan ayaad researchiga qofka ka heli karaa haduu qofka hadda waqti xataa researchiga source badan ayuu haystaa ayuu ka raadin karaa waad u baahan tahay referencing markaad shaqo kasta qabanayso iyo markaad idea oo qof leh oo leh markaad soo qaadanayso referencing-ka waad u baahan tahay haddana aad soo qaadatid oo meesha isku soo dhigto anaa iska leedahay waxay noqonaysaa plagiarism waa inaad iska dhigtid inaad adiga leedahay waxaan adan ahayn maxaa reference laga sameeyaa statistics hadda soo qaadatid oo kala qof leeyahay oo taxliiliyay quotation facts examples diagram sawiro image waxaas oo dhan equation idea fikrad theory oo qof leeyahay oo kale xaqiiq jirto qof leeyahay people oo shaqo qabtay hooshiisa wuxuu ku helay waxaas oo dhan maxay u baahan yihiin reference ayay u baahan yihiin reference laba loo qaybiyaa mid waa body text wax waaye waa citational oo qofka asagoo hadalka markuu dhameystiray ninkan hadalkiisa markaad dhameystirto authorka ayaad intaad bracket furto ayaad ku qoraysaa author hebla time waqtigaas waa body text qoraalka dhexdiisa ku jirta midna wax waaye reference list ama bibliography oo ah marka aad dhameysid qoraalka kadib ayaad reference intaad qorto ayaad wixii oo reference hayso oo dhan ayaad halkaas copy ku soo dhaysaa labadaba waa mid systematic ah oo uniform oo fiican weeyaan oo qofku uu si fiican easy u fahmi karo reporting marka qoraysidna waxa la rabaa same system inaad consistently u isticmaasho hal system inaad si toos ah u isticmaasho laga rabo marka qoraysid researchiga waxaad isticmaal chapter kasto reference ku sameyn kartaa oo casharka boodiga soo gali kartaa dhamaadka waa gali kartaa hadhowda marka wogaaga shaqada dhameysid oo research ku dhamaadana meesha hoosha appendix ayaaba waxa lagu qoraa reference reference marka qortid kadib appendix kala qoraa tusaale lagu siinaa reference hadii book aad wax soo qaadid sidee reference loo sameeyaa tusaale waa kan marka Darwin 1972 oo kale famous outline a history of evaluation based on observation varies between hadalkiisa marka qoraysa according to Darwin no arkata bibliography at the ending sana isticmaali kartaa xaq hoose waxa qoraysa Darwin c 1972 the origin of species London 10th qoraysa xaq u dambeeyo origin ka saas marka labadaasba waa isticmaali kartaa referencing markuu book yahay midkan waa boodiga
markaad gudaha soo gelinaysid ama gadaalka gee ama hore ka gee midkaan waa bibliographic meesha hooseysa markaad dhigaysid authorka ama article journal markaa wax soo qaadatid oo authorka aad qoraysid sidaan oo qoraysaa magaciisa iyo waqtigii kadibna hadalkii buuggiya sheegaysaa oo ka soo qoray ninkan oo yani article-ku wuxuu ku saabsanaa overcoming tracking system ku saabsanaa markaas waqtigaad sheegaysaa haddii aad website ka soo qaadan sidaan oo qoraysaa website-kii halkan ku soo qoraysaa ayaad leedahay website-kaas ayaan ka soo qaaday waqtigaas ayuuna ahaa waqtiga mar walba laga baahan kani waa markaad xag ugu hooseyso ku qorayso reference inta ku qorayso reference listiga waa marka labadaba reference-ga waa loo isticmaalaa gudahana waa la geliyaan baraanka wala baragrisan wax waaye inaad iska dhigto source oo qof leeyahay inaad iska dhigtid inaad source-ga yahay oo adiga aad leedahay kaasina marka academic muu fiicna academic students ka sameeyaan laakiin muu fiicna academic practice waxa inuu yahay academic inaad tahayba waxa lagu ogaadaa marka reference sameeyso yani qofka cilmi inuu leeyahay waxa laga ogaadaa reference markuu sameeyo waxaan adiga lahayn oo aad ka soo qaadatay meel kale source kale waa inaad sheegtaa waxa adiga aad qortay oo fikirkaaga yahayna waa inaad sheegi kartaa marka reference-ga direct copy-ga waa chapter 2 oo kale history oo kale iyo marka qor theory oo kale laakiin markii aad work oo qof sameeyo oo kale waad intaad akhrisid ayaad waxa ku sameyn kartaa reference-na dib u habeyn kartaa hadalkaaga ku qor kartaa waxa dhigi kartaa ninka hebla wuxuu yiri sidaan oo yiri hebla waxa saas oo yiri ayaa dhigi kartaa marka qof kasta oo reference isticmaala waxa laga rabaa source-gan inuu asaga lahayn inuu note ka qoro uu sheego source-gan waa reference ku sameeyo summarizing ku sameeyo hada copy direct sameeysa xataa ina sheegtid qofkan adiga ma lihid noqto citation ku sheegaysa ama reference listig xag hooseysa ayaad ku sheegaysaa different color isticmaal markaad qoraysid note ka sameyso your own way enter your own way oo akhrisid kadibna note ka samee kadib qof waad qori kartaa qofkii inta buugaagta akhriya kadibna oo language-kiisa ku qor hadhow laakiin inaad xag hooseysa ku sheegtay reference listiga inaad adiga lahayn don't cut and paste aku sameeyay yani waxa loo baahan yahay referencing adiga aad akhrisid kadibna hadalkaaga kooban aad ku soo qortid marka reference-ga mar walba waxa laga rabaa qofka inuu raadiyo oo hadii adiga waxaan aadan lahayn oo aad sheegtid in adiga lahayn marka reference-ga aad iyo aad u qiimo u leeyahay qofka academic inuu yahay waxa lagu gartaa markuu uu sheego waxaan inuu asaga lahayn oo meel kale ka soo qaaday inuu sheego labadii qaab midkood ba ku sheego boodiga ku sheego ama reference listiga ku sheego. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.